shirweynihii dalada jaaliyadaha Soomaaliland ee qaaradda Yurub SSE ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Helsinki ee caasimadda waddanka Finland. Shirka waxaa ka soo qayb galay in badan oo ka mid ah qurba jooga dalalka qaaradda Yurub oo ay ka mid yihiin xubno ka kala yimid dalalka Finland, Holland, UK, Sweden, Denmark, France, Italy, Norway, Germany, dalka Mareykanka iyo waliba xubno ka yimid Somaliland. Kulankan oo lagu casumay khabiiro ka socday Somaliland iyo kuwa ajnabi ah waxa barnaamijka kulankaasi loogu talagalay oo soconayay 2 maalmood oo kala ahaa 25 ilaa 26 Abriil lagaga hadlay mawaadiic loogu talagalay in lagaga doodo maalinta hore oo ay ka mid ahaayeen in laga hadlo arrimaha aqoonsiga Somaliland, doorka dhaqanka iyo saameynta uu ku yeelan karo arrimaha horumarka ama kaalinta dhalinyarada iyo haweenka Somaliland. sidoo kalena waxaa lagaga hadlay nidaamka dimuqraadiyadda Somaliland iyo qaabka lagu xoojin karo. taxanaha kulanka ayaa waxaa wada gudoominaya Cabdiraxmaan Cabdullaahi Jibriil oo ah gudoomiyihii hore dalada SSE iyo Dr. Marja Tikanan. kulanka ayaa waxaa kelmad soo dhaweynaha ugu horeyn ku furay gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee dalka Finland ee loogu magacaabo Somaliland Sawra Xasan Cali Sadex. kadibna waxaa lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha dalada SSE Cabdiraxmaan Yaasiin oo si rasmi ah isna u furay kulanka, isla markaasina mahadnaq ballaaran u soo jeediyay dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay hirgelinta barnaamijka ama kulankan ballaaran. sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay arrimaha kulanka iyo natiijooyinka laga rajaynayo in ay ka soo baxaan ama laga gaaro shirkan marka uu dhamaado. waxaa sidoo kale kelmado soo dhaweyn ah goobta ka soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee Somaliland ee UCID Engineer Faisal Cali Waraabe, isla markaasina ka hadlay muhiimadda iyo faa'iidooyinka ku jira kulamada noocan oo kale ah. waxaanu qurba jooga ku booriyay in ay kaalintooda si firfircoon ku jirto ay u soo bandhigaan iyaga oo ka faa'iideysanaya fursadaha ay haystaan. gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland isla markaasina gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa kulanka qaybtii dambe soo gaadhay, waxaana isaga laftigiisu uu si kooban uga hadlay midhaha iyo faa'iidada ku jirta kulamadan oo kale. sidoo kale waxa uu dalada SSE ku amaanay xamilka ay u yeesheen inay muddo 14 sano ah soo wadeen wada shaqaynta ururada Somaliland ee qaaradda Yurub, taasina ay keentay in ay meelo badan oo kala duwan lagu kulmo si loo xoojiyo wada shaqaynta iyo iska warhaynta. intii aan la gudagelin khudbadaha ayaa waxaa sidoo kale goobta ka hadlay Marwo Lisa Chakonzari oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Yurub, isla markaana hadallo hordhac ah oo kulanka ay ugu tala gashay goobtaasi ka soo jeedisay. xildhibaanadu waxay tilmaantay ahmiyadda dalada noocan oo kale ah ay leedahay, taasoo u adeegaysa danaha jaaliyadaha Somaliland ee qaaradda Yurub, balse sidoo kalena waxa ay tiri daladani waxa ay ka shaqayn kartaa ama ay ka shaqaynaysaa sida qurba jooga Somaliland ee qaaradda Yurub ay isu dhexgeli lahaayeen ama ay u fahmi lahaayeen bulshooyinka kala duwan ee qaaradda Yurub ee la nool yihiin. waxay xildhibaanadu ku nuuxnuuxsatay in aan la dhayalsan karin doorka ama kaalinta wax ku oolka ah ee dalada noocan oo kale ah ay ciyaari karto. kelmadaha hordhaca kadib ayaa waxaa hadalka la wareegay Professor Axmed Ismaaciil Samatar, isla markaasna halkaasi ka soo jeediyay kelmadihii furaha u ahaa mawduuca maalintaasi laga doodayay, oo taas oo uu soo jeediyay qodob ugu magac daray waxyaabaha ama arrinta ay Somaliland u ordayso iyo waxyaabaha ay ka ordayso iyo faraqa u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya. waxa uu si xeel dheer u lafaguray isla markaasina uu uga hadlay arrimahaasi, isagoo sidoo kalena markaasi ka hadlay arrimaha dawlad wanaagga iyo hufnaanta oo ay ka mid yihiin arrimihii uu goobta ka soo jeediyay. socdaalkii uu ku tagay Somaliland iyo waxyaabihii ku soo arkay oo si cilmiyeysan u soo bandhigay waxyaabaha togan iyo waxyaabaha taban ee ku soo arkay Somaliland. kulanka isaguna waxaa kaloo ka hadlay Maxamed Haruun Bixi oo isaguna cilmi baare arrimaha siyaasadda ee Somaliland, waxaanu si faahfaahsan uga hadlay isaguna qadiyadda ictiraafraadinta Somaliland iyo duruufaha ku xeeran iyo sida loogu baahan yahay ka fakarka iyo abuuridda istiraatiijiyad cusub oo la qaadi karo. waxaa isna goobta ka hadlay Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo si kulankan uga qayb galo uga yimid Somaliland.
جامع موسى جامع وأقاسمها رادسي أونلاين وحانو شرحات كبحية dhaqanka iyo doorka uu ku leeyahay horumarka ummadda waxaanu si gaar ah u soo qaatay hawlaha bandhiga dhaqanka ee uu wadankii ka wado kaasoo loo yaqaano Hargeysa Book Fair waxa iyaduna halkaasi ka hadashay Professor Marcha Tiklanen oo ka socota jaamacadda Helsinki oo ka hadashay arrimaha mustaqbalka ee dhalinyarada iyo sida loogu baahan yahay in loogu hawlgalo arrimaha ku xeeran ee la xidhiidha dhinacyada shaqada waxbarashada caafimaadka iyo wixii la mid ah kulanka waxa lagu soo gunaanaday dood aad u xiiso badan oo ay ka qayb qaateen Tuula Hayma iyo Faadimo Saciid Injineer Awraabe Professor Ahmed Ismaaciil Samatar iyo Cabdiraxmaan Ciro waxaana lagaga dooday xoojinta dimuqraadiyadda Soomaaliland waxaana lagu soo gabagabeeyay mahadnaq loo soo jeediyay jaaliyadda Soomaaliland ee Finland ee Sawra oo dhabarkeedu ridatay sidii uu kulankani u hirgeli lahaa waxa la gudagalay maalnimadii labaad ee kulanka dalladda SSC oo ku beegnay 26 bisha Abriil sanadka 2014 waxaana fursad lahaa maalinimadan dalladda SSC iyo ururada xubnaha ka ah si ay uga wada hadlaan wixii u soo qabsoomay iyo caqabadaha ka hor yimid ugu horeyn gudiga dalladda ayaa ka hadlay waxyaabihii u soo qabsoomay sanadkii 2013 ilaa 2014 waxaana arrimahaasi ka waramay Cabdiraxmaan Yaasiin oo ah gudoomiyaha dalladda Iid Xasan oo ah lacag hayaha dalladda iyo Mootaxa Jacali oo kamid ah xubnaha gudiga SSC inta kadib waxa fursad la siiyay in ay ururadii ka soo qayb galay kulankaasi si kooban uga waramaan iyagana waxyaabihii u qabsoomay ururka Nomad oo ka jira dalka Holland waxa matalayay oo u hadlay Dr. Xuseen Cabdilaahi halka dalladda guud ee Sweden uu hadlay Sakariya Xasan halka jaaliyadda wadanka Faransiiskana uu ka waramay waxqabadkooda iyo xaaladooda gudoomiyaha guud ee jaaliyadda Soomaaliland dalka Faransiiska Mr. Mawlid jaaliyadda Soomaaliland ee galbeedka London ayaa waxa uu waramay agaasimaha ama waxqabadkooda ka waramay agaasimaha jaaliyaddaasi Iid Xasan hay'adda EAD ayaa waxa ka waramay iyaguna waxqabadkooda Axmed Kadleeye halka jaaliyadda Soomaaliland dalka Finland uu si faahfaahsan uga waramay waxqabadkooda Xasan Cali oo gudoomiyaha jaaliyaddaasi waxa iyaguna kulanka ka hadashay ayaan Maxamuud Cashuur oo ka warantay ololaha 18 May iyo hawlaha ay wadaan jaaliyadda Soomaaliland ee wadanka Denmark waxa matalayay oo u hadlay Cabdirasaaq Afqaraf halka ololaha My Somaliland oo ah ergo u ololeysay ixtiraafarinta Somalilandna uu u hadlay ama uu ka waramay waxqabadkooda iyo ujeedadooda Maxamed Yuusuf ururka qoraaga Somaliland Ben ayaa waxa uu hadlay Mr. Sayid halka jaaliyadda Soomaaliland dalka Talyaanigana uu Jaamac Muuse ku matalayay xiriyaasha barnaamijka maalinta labaad qaybtiisa hore ayaa waxa xidhiidhinaya aniga Maxamed Amiin Siyaad Cabdi halka qaybta labaad na uu xidhiidhinayay Xasan Maxamed Nuur inta kadib waxa la gudagalay doorashada hoggaanka dalladda SSC ee labada sano ee soo socda waxaana halkaasi dib loogu doortay mar labaad in ay hawshaasi sii wadaan saddexdii xubnood ee gudiga ahaa oo kala ahaa Cabdiraxmaan Yaasiin Iid Xasan iyo Mootaxa Jacali waxaase lagu soo daray xubin cusub ka mid noqon doonta gudigaasi oo ah Cabdirasaaq Afqaraf ugu dambeyn waxaad halkan ka akhrisan doontaa go'aamadii ka soo baxay kulankaasi على يوم
عليه ثلاثيو عليه ثلاثيو النور سبات وقديغان فيه عليه وليغا هدعين عليه وليغا هدعين عليه عبدالطيو النور سبات وقديغان فيه عليه وليغا هدعين عليه وليغا هدعين عربا على يوم عربا على يوم عربا عدد الركتور نحبانكو شبي على يوم ولقا هدعين على يوم ولقا هدعين على يوم عربا عدد الركتور نحبانكو شبي على يوم ولقا هدعين على يوم ولقا هدعين